Maalin walba marka aynu soo toosno waxaan isu diyaarinaa ka gungaaridda guul aynu ka gaarno adduunkan. Qof walba waxa uu rajo ka qabaa guushiisa ballaaran ee aan maalin lagu gaari karin inuu ka qabto qayb yar oo ka mid ah, si ay ugu fududaato inuu si dhab yar ku gaaro. Si uu awooddiisa koowaad ugu helana maalintiisa, wuxuu ku bilaabaa cabidda koob qaxwo ah ama koob shaah ah. Koobkaas qaxwada ah wuxuu jirkiisa u diyaarinayaa inuu kala furfuro habdhiska dheefshiidka ee jirkiisa. Dabcan waxaad maalin uun maqashay ama aad cabtay koob shaah ah oo ay farsamaysay ama ay samaysay shirkadda Starbucks, waana maqaayadda maanta inoo saaran miiska si aynu ula fagurno guulaha ay xaqiijisay iyo sida ay sidaasi oo dhan ugu baahday caalamka. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Magacaygu waa Dr. Yacquub Xasan. Starbucks waa maqaayadda shaah ee ugu caansan uguna hodansan adduunka. Waxaa bilaabay nin markii uu keenay fikradiisa cusub lagu jeesjeesay, si aanan fiicnayn loola hadlay, la niyad jebiyey, balse dadaal iyo hami, joogtayn iyo dhiiranaan kadib awood u yeeshay inuu dhidibada u aaso mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan adduunka. 33,000 oo maqaayadood oo ku kala yaala 44 dal ayaa lagu qiyaasay baaxadda ay la egyihiin maqaayadaha Starbucks, halka faa'iidadeeda sanadlaha ah 2018 ay gaartay $24.71 bilyan. 1981 Howard oo ahaa xilligaas da'yar 27 jir ah kana shaqayn jiray shirkad soo saarta agabka ka samaysan balaastikada, gaar ahaan agabka lagu shaandheeyo shaaha si looga reebo caleenta, ayaa arkay in shirkad yar oo ku taala magaalada Seattle ee ku taala dalka Mareykanka ay ka iibsato shaandhooyin aad u badan. Inkastoo ay tahay shirkad yar oo hadda soo kacaysa, hamina ka leh waxa ay ka shaqayso, shirkaddan ayaa ka iibsan jirtay caleenta qaxwada iyo shaaha iyo sidoo kale agabka lagu sameeyo shaaha, waxaana la dhihi jiray Starbucks Coffee, Tea and Spices, waxayna xoogga saari jirtay diyaarinta qaxwo iyo shaah aad u tayo sareeya. Arrintan ayaa ka dhigtay Howard mid ku dhalisa xamaasad uu ku doonayo inuu ku ogaado qaabka ay u shaqayso maqaayaddan. Waxaa xusid mudan in xilligaas ay ahayd samaynta qaxwaha mid aad uga sahlan qaabka loo sameeyo maanta, sidoo kalena aad uga qiimo yar. Halka koob ee qaxwaha ah wuxuu ahaan jiray xilligaasi wax ka yar $1, halka maanta uu joogo $5. Wuxuu bilaabay Howard inuu aado xaggii ay ku tiilay maqaayaddan ee Seattle. Wuxuu booqday maqaayaddii uu darteed uga soo kicitamay magaaladiisa. Wuxuu arkay maqaayad aad u yar kuna dhex taala suuq qadiimi ah, looguna shaqaynayo dad aad u yar tiro ahaan. Wuxuu gudaha u galay shirkadda Starbucks oo uu muuqeedu liitay, waa sidii ay markaa ula muuqatay Howard. Wuxuu aad ugu fiirsaday qaabka ay u sameynayaan qaxwaha, isagoo la kulmay mulkiilayaashii maqaayadda, Jerry Baldwin iyo Gordon Booker. Wuxuu la cabay koob ka mid ah qaxwihii lagu sameynayay maqaayadda Starbucks. Wuxuu arkay Howard awoodda iyo carafta uu leeyahay qaxwaha. Wuxuu isla markaas go'aansaday inuu ayaga la shaqeeyo xamaasaddii haysay awgeed, uuna ka tago shaqadii uu horay u hayay. Laakiin nasiibku ma caawin Howard inuu shaqo ka helo maqaayaddan. Waxa ay ku qaadatay muddo sanad ah kadib markii ay badiyeen faracyadoodii, ay fureen faracoodii ugu horreeyay oo ay go'aansadeen inay ka hirgeliyaan meel ka baxsan magaalada Seattle. Waxay oggolaadeen inay shaqaaleysiiyaan Howard, waxay ka dhigeen maamulaha suuqgeynta. Da'diisuna xilligaas waxay ahayd 29 sano jir. Wuxuu kasoo tagay Howard magaaladii uu ku noolaa ee New York, wuxuuna u soo wareegay magaalada Seattle, waxayna ahayd riyadiisa inuu maqaayaddan ka dhigo mid faracyo badan ku leh gobol walba oo ka mid ah gobollada dalka Mareykanka. Laakiin hadafkooda koowaad ma ahayn samaynta qaxwaha iyo shaaha sida ay maanta caanka ku tahay, balse wuxuu ahaa hadafkooda iibinta caleenta shaaha iyo qaxwaha iyo qalabka lagu sameeyo si dadka guryahooda ugu samaystaan. Laakiin sanadkii 1983 waxaa dhacday in Howard uu safar u aaday magaalada Milan ee dalka Talyaaniga si uu uga qayb galo carwo lagu soo bandhigayay agabka guryaha, si uu ugu soo adeego maqaayaddii uu ka shaqaynayay. Laakiin waxa uu si kadis ah u arkay wadooyinka magaalada Milano oo ay buux dhaafiyaan maqaayadaha lagu sameeyo qaxwaha iyo shaaha, waxayna indhihiisu qabteen noocyo kala duwan oo ay sameynayaan sida cappuccino, latte iyo kuwo kaloo badan, taasoo keentay inuu aad ula yaabo kala duwanaanta ka jirta suuqa iyo hababkan cusub ee aanu hore u arkin. Wuxuu go'aansaday inuu la wadaago fikradihii uu ku soo arkay magaalada Milano milkiilayaashii maqaayaddii uu ka shaqaynayay si ay u farsameeyaan noocyadan cusub ee qaxwo samaynta ah. Wuxuuna u jeeday Howard haddii Starbucks ay fuliso samaynta fikradahan ay u horseedi doonto inay ku faafto adduunka oo dhan, sidoo kalena ay hesho macaamiil intii ka badan. Laakiin sidii caadada ahayd, fikrad walba oo cusub ay
u lahayd diidmo iyo ka hor imaansho. Howard wuxuu markiiba la kulmay diidmo kaga imaanayay mulkiilayaashii maqaayadda Starbucks, waxayna milkiilayaashii Starbucks ay isku wada raaceen inaysan ahayn fikrad habboon oo macquul ah waxa uu xambaarsan yahay wiilkan yarka ah oo ka mid ah shaqaalahooda. Waxay ku qaadatay Howard muddo sanad ah inuu ku qanciyo milkiilayaashii Starbucks fulinta fikradiisa, waxayna ugu dambeyn ogolaadeen in lasoo dhigo hal makiinad oo awood u leh samaynta noocyo kooban oo qaxwo ah. Makiinadan ayay dhigeen faracoodii lixaad oo ay furteen bishii afraad ee sanadkii 1984. Arrinta la yaabka leh ayaa ahayd in 2 bilood kadib furitaankii faracan ay gaareen macaamiishoodii maalinlaha ah 800 oo macmiil ah, halka faracyada kale celcelis ahaan ay ahaayeen macaamiishooda 250 macmiil. Wuxuu ahaa faracan cusub mid soo jiita macaamiil cusub maadaama uu ahaa mid sameeya noocyo cusub oo aysan aqoonin Ameerikaanku. Waxa ayna markii ugu horeysay hindiseen Mareykanka gudihiisa inay sameeyaan qaxwo caano lagu daray iyo sidoo kale qaxwaha loo yaqaano maanta latte-ga. Guushan aadka u ballaaran ee uu xaqiijiyay faracan cusub, inkastoo uu haddana ahaa mid 2 bilood uun laga joogo furitaankiisa haddana kama dhigin mulkiilayaashii Starbucks kuwa bedela habkii ay markii hore u shaqeynayeen. Dhammaadkii sanadkii 1985 wuxuu ka tagay Howard shaqadii Starbucks isagoo u jihaystay samaynta maqaayadiisa u gaarka ah, wuxuuna ugu magac daray Giornale. Wuxuu xoogga saaray inay fuliso fikradihii ay diideen inay hirgeliyaan milkiilayaashii maqaayadda Starbucks. Mid ka mid ah daaraha ugu dhaadheer magaalada Seattle inuu ka furto faraciisii ugu horeeyay. Yaraanta lacagta uu haysto uma aysan suuragelin inuu hirgeliyo maqaayadiisa. Ka hor inta aanay milkiilayaashii Starbucks go'aansan inay maalgashadaan fikradii Howard, lacag gaaraysa $400,000 halka dhakhtar asna la dhacsanaa fikradda asna uu ku maalgashaday lacag dhan $100,000. Wuxuu sidaasi ku bilaabay Howard hirgelinta fikradiisa cusub. 2 sano uun kadib waxay go'aansadeen milkiilayaashii Starbucks inay iska iibiyaan maqaayadahoodii si ay u bilaabaan fulinta mashaariic ganacsi oo ka baxsan samaynta qaxwaha, taasoo Howard u noqotay fursad uu ku ballaarinayo fikradiisa. Kadib dadaal dheer wuxuu awood u yeeshay inuu soo aruuriyo lacag gaaraysa $3.8 milyan si uu ula wareego 6dii farac ee lahayd shirkadda uu qaalaha ka ahaa ee Starbucks iyo sidoo kale warshadii lagu samayn jiray shaaha. Kadib markii uu la wareegay shirkadda, wuxuu go'aansaday inuu shirkadihiisa ka mideeyo magacyada oo uu ka dhigo Starbucks oo keliya. Wuxuu bilaabay Howard gelinta waqti iyo dadaal aad u ballaaran maqaayadiisa cusub, isagoo halku-dhig ka dhigtay maqaayadiisa inay gaarto meelo badan oo caalamka ku yaala. 3 sano kadib, gaar ahaan markii uu la wareegay 1990, waxay faracyadeedu gaareen 55 farac. Ka hor inta aysan gaarin sanadkii 2003, faracyada Starbucks 7,569 farac oo ku kala yaala 31 dal. Maanta Starbucks waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah shirkadaha ugu tunka weyn adduunka, waxaana lagu qiyaasaa shaqaalaha Starbucks 291,000 oo shaqaale. Sanadkii 2018, isla sanadkaas, faa'iidadeeda waxay gaartay $24.71 bilyan. Starbucks shalay waxay ku bilaabatay shirkad aad oo leh macaamiil yar oo gaaraya 250 macmiil, waxayna haysay waddo xilligaas ay wada hayeen shirkadaha ku yaala dalka Mareykanka. Laakiin markii uu yimid qof xambaarsan fikrad hal abuur leh, muujiyay dhiiranaan iyo hal adeeg oo ku hal adeegay fikradiisa, isku bedeshay maqaayadii 6 farac ahayd imbaraatoriyad maamusha shaqaale kor u dhaafaya 290,000 oo shaqaale, waxayna cinwaan u noqotay qaxwaha iyo shaaha adduunka oo dhan. Ugu dambeyn, haddii ay jirto wax maskaxdaada ka guuxaya, ha quusan. Si walba oo ay xaaladuhu isu bedelaan, oo geli waqti iyo dadaal, ugu dambeyn waad guuleysan doontaa. Waxaad guran doontaa mirihii aad rajaynaysay. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.